بسم الله الرحمن الرحيم بدا صاحبka gobolka haweenada dawladda hoose xildhibaanada golaha deegaanka cuqaasha iyo shacweynaha reer Gabiley waxaan ku salaamay islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii aniga maanta de maalin weyn bay tahay 15 January baan golaha iyagu xilka la wareegay maantana waa 17 March muddo 2 bilood iyo 2 cisho ayaa waxaanu nasiib u yeelanay inaanu gaadiidka aanu dawladda hoose u soo iibino oo runtii ay baahi weyn u qabtay marka ugu horeyn Ilaahay baan Deeyo subhanahu wa ta'ala uga mahad celinayaa mar labaadkana waxaan u mahad celinayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiirka dawladda hoose oo iyaguna gacan naga siiyeen aan muxuu ahaayay hello gaadiidkan oo systemkii iyo processkii aanu maraynayba noo fududeeyay aad baan uga mahad celinayaa runtii gaadiidkan baahi weyn baa loo qabay waayo marka wadooyin magaalada laga sameeyo waxay noqonaysaa qasab in muxuu ahaayay kharash badan uu kaga baxo in wadooyinkan la sameeyo maantana waa alxamdulillah waxaanu samayn doonaa wadooyinka magaalada gudaheega iyo kuwa ka baxsanba inay si fudud noogu fududaateen carakaawada iyo muxuu ahaayay wadada inteeda hore oo dhanba dhigno sidaa xildhibaan Cabdiraxmaan sheegayna waxa noo qorshaysan inaanu soo dhameystirno muxuu ahaayay adeegyada kale ka maqan kuwaan wadooyinka ku sameyn lahayn oo aanu rajeerino dhawaan isagana inaan adeegyada dhaaka qawl galno runtii horumarkaanu degmada ka wadnaa intaanu ma noqon doono mana jecelina ka sii hor dhaco wax badan baan hadii la yiraahdo bilaha soo socda aanu degmada ka qaban doonaa horena waxaan u ballan qaaday inaanu dadka bulshada aanu daacad ugu shaqaynayno oo nugu xooga muxuu ahaayay ku soo celinayno farxad baan inoo tahay maanta in boqolkii cishe madaxweynuhu uu ballan qaaday in wax qabad muuqdo uu ka qabto Somaliland inaan anaguna qayb ka noqono wax qabadkii oo maanta gaadiidka inta leeg aanu dawladda soo iibino runtii farxad gaar ah bay inoo tahay waxaan ku soo dhaweynaa balsaabka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh